saacadaha soo socda waxaa suuragal ah in Iiraan ay ku tijaabiso nukleerkeeda ugu horeeyay ee Tel Aviv waxaase suuragal ah in Iiraan markana ay qaado tallaabo culus sidoo kalena ay cawaaqib xumo ay kala kulmi doonto ee qaramada midoobay taas oo ah in nukleerka ay ku tijaabiso Tel Aviv. Israa'iil ayaa sidoo kale cabasho ka muujisay in aysan waxba gaarsiinin keydka tamarta ee nukleerka ee Iiraan kadib markii Iiraan ay la soo baxday nukleerka sidoo kalena ay soo muujisay nukleerkeeda ugu horeeyay taas oo ku sheegtay inay ku tijaabin doonto Israa'iil. Wararka bariga dhexe iyo sidoo kale xaalad culus ee ka taagan ee bariga dhexe iyo guud ahaan dalalka caalamka oo ku kala qaybsamay aragtida dagaal. Markii hore weerarka waxaa si toos ah u bilaabay Israa'iil iyadoo sidoo kalena ay dishay saraakiishii ugu sarsareeyay kacaanka Iiraan sidoo kalena dhibaato xoogan ay gaarsiisay keedka hububka iyo sidoo kale goobihii ugu muhiimsanaa Iiraan. Iiraan ayay sheegtay inay jawaab adag ay ka bixi doonto balse waxay u muuqatay mid kaftana maadaama horey ay Iiraan dhowr jeer sidaan oo kale khasaaro loogu geystay gudaha Iiraan ay sheegtay inay jawaab adag ay ku bixin doonto markani waxay suuragal ay noqotay in Iiraan si toos ah ay u beegsato caasimadda Israa'iil iyadoona ay fulisay duqeymihii ugu cuslaa ee taariikhda tan iyo sanadooyinba oo ay ku geysato gudaha dalka Israa'iil. Israa'iil waxaa gaaray dhibaato xoogan iyo burbur markii horese waxay u muuqatay in Israa'iil weerarkaasi ay guulo ay ka keentay maadaama gacanka dagaalka biloobay ay iyadu ay lahayd taa beddelkeeda Iiraaniyiintu waxay bixiyeen jawaab adag oo kulul taas oo ay ku beegsadeen xitaa goobihii ugu muhiimsanaa ee Iiraan. Maxayse tahay khasaaraha laga qariyay ee bulshada sidoo kalena aan la keenin baraha bulshada iyo warbaahinadaba aan faafin. Israa'iilna ay ilaa imika ay ku jirto inay daboosho dadaal xoogan ay ugu jirto si aysan xogaasi banaanka u bixin. Diyaaradihii ugu badnaa ee abad Israa'iil ay lahayd ayaa hal goob ee xaruntii ugu muhiimsaneed ciidamada cirka ee dalkaasi ayaa Iiraan ay beegsatay iyadoo sidoo kalena ay ka fulisay guud ahaan dalkoo idil duqeymo culus oo aan weligeeda la arkin. hal mar Iiraan waxay hawada ay u dirtay 300 oo gantaalo ah oo ridada dheer ah waxaase xigay diyaaradaha aan duuliyaha leh iyo sidoo kale kuwa isqarxiya. Tel Aviv gebi ahaanba waxay isku bedeshay meel aan weligeedba aan ahayn goob aan la degay sidoo kalena cabaadkii iyo burburkii ka dhacay halkaasi iyo khasaarihii dhimashada ayaa la kala garan laayahay ilaa imika dadka. Dagaalka wuxuu saameeyay bulshada ku kala nool Iiraaniyiinta iyo Falastiiniyiinta dhexdoodaba. Qorshaha dagaalka cusub waxaa suuragal noqon karto in adduunyadana ay sheegeen halka rasmiga oo dagaalka saddexaad adduunka uu ka qarxi doono inuu yahay isla markaana uu ka bilowdo bariga dhexe. Barigana dhexena waa sida ay u muuqato labada dowladood ee ugu awoodda badan waxay kala yihiin Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil waa kuwa hadda imika is haya. Donald J. Trump saacado ka hor intuusan bilaabin weerarka rasmiga wuxuu sheegay in Israa'iil uu ka celcelinayo inay weeraro ay ku qaado gudaha dalka Iiraan sidoo kalena uu xusay inuusan u baahnayn xilligan in weerar lagu qaado Iiraan loona baahan yahay in Iiraan ay heshiiska degdeg ay ula gaarto Mareykanka. Donald J. Trump wuxuu sheegay in markaan loo baahnayn muhiimad gaar ah uu siinayay Israa'iiliyiintu maadaama ay iyagu doonayaan inay weerar ay ku qaadaan sidoo kalena uu sheegay in Iiraan ay ka soo fikirto arrinkan si degdegana jawaab ay ugu bixiso heshiiska madaxweyne Donald J. Trump oo inaan nuclear wadankaas gabi ahaanba yeelan. Iiraaniyiintu ayaa ka aamusay fariinta Donald J. Trump saacado kadib waxaa dhacay weerarkii ugu cuslaa ee taariikhda ee lagu fuliyo gudaha dalka Iiraan. Burbur xoogan ayaa ka dhacay Iiraan shacab badan ayaa ku dhintay oo tiradooda gaaraysa ilaa iyo 100 halka tiro kor u dhaafaysa 300 la dhaawacay aan noqdeen. Jawaabta Iiraan bixisay waxay noqotay mid ka daran sidoo kalena xanuunkii ay geystay ay tahay mid ilaa hadda dunida ay la qeylinayso. Iiraan waxay geysatay burbur xoogan magaalooyinka ugu waaweyn ee magaalada caasimadda u ah ay ka mid tahay Israa'iil ee Tel Aviv sidoo kalena ay duqeysay min guri ilaa iyo halkii ugu muhiimsaneed xarumaha sida wasaaradda difaaca oo kale. waxaase soo gaaray burbur xoogan iyo dagaal iyadoo sidoo kalena Israa'iiliyiintu ay cabaad ay ka muujiyeen meel kasta sidoo kalena ay sheegeen in waxa la duqeynayo ay yihiin shacabka ee aysan ahayn xarumaha ay dawladda ay leedahay. Khasaaro xoogan ayaa gaaray Israa'iil imika waxaase sidoo kale imika ay soo jeedinaysaa in la joojiyo dagaalka oo ka bilowday sidoo kalena ay iyadu lahayd xaqdarada iyadu ay bilowday waxay doonaysaa in markaa ay joojiso sababta maxay tahay
sababta ayaa ah inay joojin weysay ama istaajin weysay ee gantaaladii. sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa ku fashilmay gebi ahaanba inay la socdaan xaaladda rasmiga ee Iiraan, maadaama hore iyagu ay ugu guuleysteen inay dilaan saraakiishii ugu sareysay ee dalkaas, sidoo kalena weeraro ay fuliyeen iyagoo sheegay inay gacanta ay ku dhigeen, sidoo kalena ama hakir ay ku sameeyeen nuclearka ee dalkaasi, iyo sidoo kale hub kasta ee kasoo baxa Iiraan saacad kasta inay la socdaan. qorshahaasi waxay noqotay mid gabi ahaanba ay ku farxaan reer galbeed. taa bedelkeeda waxay dhacday in jawaabo kulul sidoo kalena khasaaro weeraro aan lama filaan ay noqon karin inay ku dhaceen Israa'iil. sirdoonka Mossad Israa'iil ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu ku eedeeyay inay ku fashilmeen gebi ahaanba sugidda amniga, isagoo sidoo kale sheegay in sirdoonka Mossad imika aan loo baahnayn, sidoo kalena loo baahan yahay xal waara, taasoo ah in Iiraan heshiis lala galo ee markaa. waxaase la kala aamusay saaka weeraradii aroortii hore. mar kale ayadoo xaaladdu ay iska degan tahay, Iiraan waxay bilowday weeraro culus, sidoo kalena ay ku garaacday madaafiicul culus ee magaalooyinka ay ugu horeyso ee Tel Aviv. sida sawiro iyo muuqaalo laga faafiyey ee baraha bulshada, khasaaraha Iiraan soo gaaray inkastoo laga dilay dadkii ugu sareeyay iyo sidoo kale madaxii ka dambeeyey abuurista ee nuclearka ee bacriminta dalkaasi laga dilay, haddana waxaase la sheegaa in khasaaraha soo gaaray Israa'iil ay aad u badan tahay, sidoo kalena guusha markaan ay la jirto Iiraan. waxaase suuragal noqon karaa in dagaalkani uu sii qarxo. wadamo badan ayaa imika indhaha ku haya ee dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil. waxaase suuragal noqon karto in haddii ay sii socdaan duqeymaha iyo ay fulinayso Iiraan, in dagaalka toos u galo ee Mareykanka. mar haddii Mareykanka dagaalka toos u wajahana, waxaase suuragal noqon karto inuu qarxo dagaalka saddexaad adduunka, halkaasina ay isku arkaan wadamo badan, sidoo kale xulufaysi uu ka bilowdo.